كلتي وعنا ونكسن داودير هالكن وقرونكا استاديو مقدشو وعاد كسو دباتان تبن عياريد كان وقيبكا ترتكا دقموينكا iyo deegaanada gobolka Banaadir waxay ciyaartan dhexmaraysa degmooyinka kala ah Boondere iyo deegaanka Daarusalaam groupka A ayay ku wada jiraan waxayna ciyaarayaan kulamadooda ugu dambeeya tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir lambarka 7 ayaa u taagan dhanka Boondere Zakariya Ilyas Hussein ayaa sameynaya baaska qaybta koowaad waa uu sameeyay ugu dambeyntii Boondere ayaa sameysay baaska qaybta koowaad ee ciyaarta difaaca dambe kubadda golayaha ayaa la gaarsiiyay goalkeeper-ka ayaa kubadda haysta si kalsooni ay ku dheehan tahay ay ciyaarayaan labada dhinac garabka taala markan dambeedka badax Harvaya Sahlo taagay wili duulaan Boondere garabka iyo taala Daarusalaam ayaa iska soo difaacday markan iga duulaana dhaxda markan raanka weerarka garabka ayaa la soo gaarsiiyay ninka lambarka 17aad Liibaan wala soo hordhay kubadda waa ka Zakariya wili isaga Zakariya fantastic goal 1-0 goal yabar ay ciyaarta ka dhigan ciyaartooyda degmada Boondere ee gobolka Banaadir Zoo ayuu leeyahay Zakariya Ilyas Hussein ayaa ku bilaabay dhanka deegaanka Daarusalaam waa lagu bilaabay Alcapitano Zakariya ayaana shabaqa gaaray ciyaartana ka dhigay gool yabar xiraanka lambarka 2 ayaana kubadaasi 17aad ayaa kubadaasi caabiyay 1-0 ciyaarta Zakariya ayaa shabaqa gaaray Zakariya ayaa shabaqa gaaray Daarusalaam waa lagu bilaabay Boondere waa ay dhaliyeen afartii kulan ee la soo dhaafay kaliya hal jir ayay guuleysteen guud ahaan tartankan in team walba uu heli karo inuu gool ayaa kubadaasi banaanka kaga saaray dhanka degmada Boondere gool ayaa kubadaasi banaanka u saaray waase geeska la Daarusalaam ay soo sameynayaan wala soo tuuray laakiin golayaha kubadaas saaray mar kale lagu celiyay laakiin banaanka aaday banaanka ay kubadaasi aaday fursad Zakariya ayaa fursad kale ay soo martay laakiin ma aysan noqon wala soo tuuray kubadda 1-1 gool iyo gool ugu dambeyntii qaad ay sameeyeen ayaa lagu qaabay ciyaartooyda degmada Boondere ee gobolka Banaadir Daarusalaam waxay keeneen goolka barbaraha gool iyo gool ugu dambeyntii 1-1 Daarusalaam waxay baadi goobayaan guushooda ugu horeysay ee tartanka degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir goolayaha kubaddu dhiibtay ayuu shabaqa dhex dhigay ciidanka lambarka 7 ee lagu magacaabo Axmed Cusmaan Cabdullaahi ayaa ka faa'iideystay qalad ka dhex dhacay golayaha Boondere iyo difaaciisa ciyaartuna waa 1-1 ama gool iyo gool Axmed ayaa shabaqa gaaray Axmed Cusmaan Cabdullaahi lambarka 8 geeska ayuu kubadaasi geeyay duulaan Daarusalaam gool ayaa kubadaasi qabsaday ma aysan noqon difaaca dambe ayaa kubadaasi ka saaray ciyaartooyda degmada Boondere ee gobolka Banaadir Daarusalaam ayaa ku sigatay inay hoggaan ku qabato laakiin ma noqon kubad goolayaha ugu soo baxay waa laga soo kor qaaday wala soo tuuray markan
banaanka ayaa looga saaray waa kona bondheere geeskalaadaba kona ay soo sameynayaan Zakariya waa la soo hordhigay kubadda banaanka looga saaray banaanka ayaa laga soo toogtay birta ayaa ka diiday bondheere si wacan ayaa u ciyaarayaan diini ayaa banaanka kasoo habeystay laakiin kubaddaasi birta ayaa ka diiday weli Daarusalaam waa la hordhigay weli waaw gool ayaa kubaddaasi ka saaray kona qaadir salaad banaanka ayaa looga saaray gool ayaa bondheere ayaa kubaddaasi banaanka ku hubsaday si wacan maxamed alkabitaano baas fiican ayuu dhiibay axmed cabdulqaadir ayaaba darba guusha aadiyay laakiin waa laga saaray soo tuuray kubadda bokiska la soo saaray markan waa kan yaa Zakariya Dene 2-1 laba gool iyo gool ayaa ciyaarta ka dhigeen ciyaartooyda degmada Bondheere ee gobolka Banaadir Diini Maxamed Daahir ayaana shabaqa gaaray baas uu ka helay saaxiibkiisa alkabitaano Zakariya kubad asalkeeda geeska ka timid Zakariya dhaliyaha goolka hore Diini ayuu u taagay bidix ayuu kor ka siiyey 2-1 laba gool iyo gool Bondheere ayaa hogaanka markale la wareegtay baaskii Zakariya laadkii Diini shabaqa Daarusalaam ayuu ku dhamaaday ciyaartu waa laba gool iyo gool Zakariya yaa Zakariya isaga ayaa kubadaysta Zakariya weli Zakariya 3-1 saddex gool iyo gool waa goolkiisa labaad ee ciyaartan Zakariya saddexda goolba isaga ayaa ku lug yeesho labana waa dhaliyay midna waa u caabiyay lambarka 7 ee degmada Bondheere Zakariya oo ciyaartooyda deegaanka Daarusalaam safka maray ugu dambeyntii shabaqa dhex dhigay 3-1 Bondheere saddex gool iyo gool ayay sii marsiinaysaa deegaanka Daarusalaam duleedka caasimadda Muqdisho sanadkii labaad oo xiriir ah ayay labada degmaba ku harayaan heerka group stage-ka inkastoo Bondheere sanadkan foomkooda aad u fiicnaa haddana groupka ay ku jireen oo 6 ahaa iyo Gubadley iyo Dharkinley oo min 10 dhibcood shaqaysteen ayaa ciisho 9 dhibcood iyagoo leh booska saddexaad ku dhameystay ayay hari doonaan Zakariya ayaa shabaqa gaaray Axmed Cabdiraxmaan uu soo galay weli isaga soo tuuray kubadda wala dhablay wow fantastic goal qurux badan ayaa durba dhaliyeen deegaanka Daarusalaam ee duleedka caasimadda Muqdisho kubad labaalay ama dhabal ah ayaa shabaqa Bondheere la gaarsiiyey ama la dhexgeliyay dhabal ay dhaliyeen ciyaartooyda degmada ama deegaanka Daarusalaam Axmed Cabdiraxmaan ayaa kubaddaasi caabiyey waxaana dhaliyay ciraanka lambarka iska soo saareen deegaanka Daarusalaam bokiska ay kubadda taala wala soo madaxiyay difaaca Daarusalaam uu soo saaray bokiska ay taala wali wala soo dhabaliyay birta Bondheere si wacan ay u ciyaarayaan waxay ka maamulanayaan bokiska deegaanka Daarusalaam birta ayay kubaddaasi garaacday haddii ay Daarusalaam dhabal dhaliyeen Bondheere dhabal ay sigtay Daarusalaam biraha ayaa laga garaacay waa la soo tuuray markana Bondheere waa kan weeraryahanka meel fiican wow weli fantastic goolka afraad ee ciyaarta ay dhaliyeen ciyaartooyda degmada Bondheere ee gobolka Banaadir Daarusalaam oo raadinaysa goolka barbardhaca ugu dambeyntii waa laga dhaliyay waase loo afreeyay offside garab dhaaf Daarusalaam ayaa kubadda soo ciyaargelinaysa ciyaartana sidaa ayay ku ilaatay 4 gool iyo 2 gool Bondheere ayaa ku adkaatay labada degmana Daarusalaam iyo Bondheere gudahan tartanka way maxsalaameen tibiti toos ku wanaagta nabad kaliya